السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلامي دمان قيادة كحرن جنال كسود وهذا عشر كنا مانتو وحكو سابسين هاي interference محلي هذا horta haddii aan isku dayno af Soomaali waxay noqonaysaa faragelin jeesa sideedaba waa wada shaqayn waa in xubnaha ay wada shaqeeyaan marka kaba soo qaad ka waran cadowgaaga xubnihiisa si wanaagsan u wada shaqeynayo haddii aad si kadis ah aad wada shaqaynta ugu joojisid yacni adi ma awoodid oo qofka ka soo horjeeda xubnihiisa inaad dhaqaajiso adi ma awoodid balse tactikadan aan maanta ku baraya ayaa waxaad ku samayn kartaa in wada shaqayntii aad ku joojiso si kale interference waxa loo isticmaalaa marka cadowgaaga uu daafacayo square muhiim ah waxay noqon kartaa square haddii uu ka dhaqaaqo jagmed lagu sameynayo aad ka joojiso inuu squarekaas daafaco marka waan arki doonaa exambalada aan aragno examplekan haddii aan fiirino cadaanku wuxuu imaaday h2 boqorka sababtoo ah kuwinta ayaa boqorka jag tiri jag ayaa la dhahay marka h2 waa uu ku qasbanaa wuu imaaday haddii aan fiirino marka cadaanka wuxuu daafacayaa waa askarigan sababtoo interference waxaan idin dhahay waa marka cadowgaaga uu square muhiim ah ama xubin muhiim ah ama askari muhiim ah tusaale askarigan waa muhiim sababtoo ah askarigan haddii la dilo boqorkan jagmed ayuu gali doonaa marka qishkana waan ku siiyo waxaan ku dhahay waa in wada shaqaynta aad ka joojisaa macnaha yaa wada shaqaynta ka joojinaysaa askarigan iyo kuwiinta sababtoo ah wada shaqayn ayaa ka dhaxayso waa kuwiinta waxay daaficaysaa askarigan so sidaan u kala jari karaa marka si aan boqorkan ugu sameeyo checkmate isku dayday rook f3 wow waxaad ka joojisay wada shaqayntii balse su'aal ayaa laga yaabaa inaad isweydiiso niyow so askariga ma dili karo annaga muhiimadeenna qalcadda maba ahanba qalcadda ma ahan ee muhiimadda waxay tahay in askarigan aan kuwiintan daaficiisa aan ka joojisano si aan boqorka ugu sameyno checkmate so haddii marka kalama jecelin haddii fardahan uu dilo haddii askarigan uu dilo iyo haddii kuwinta ay dishana waa dee waa iska qaadanaynaa marka so waxaa kolley waxaa qasaba si boqorka loo badbaadiyo in kuwinta lagu dilo and then this is end of the game what will happen marka askarigan haddii uu dilo maxaa dhacayo waa checkmate bishopka ayaa checkmate dhigi doona boqorkan waa ay u dhammaatay so interference marka hadda waxaad samaysay faragelin ma dhihi karnaa sababtoo ah kuwiintan shaqadii ay haysay ayaad si qasab ah ugu joojisay sababtoo ah askarigan askari muhiim ah ama squarekan aan dhahno squareka uu askariga ku taagan yahay waa square checkmate lagu samayn doono boqorka saas awgeed waxaa meesha ka baxay shaqadii kuwiinta qasab ayaad ugu saartay taasina waa waxa lagu magacaabo interference waa tahay bal examplekan fiiri oo isku day inaad xaliso inaad samayso interference ama faragelin ama xanibaad midkaa rabtaba ugu magacaabo maxaa kuu muuqanaya horta marka koowaad cadaanka wuxuu diyaarinayaa in boqorkan checkmate uu dhaho sababtoo ah boqorkan meeluu ka baxa ma lahan inta bishopkiisa ka xayiray inta askartiisa ka hortaagan inta qalcaddiga ka taagan so imagine marka waxaa maskaxdaada waxaad ku sawirtaa haddii kuwiintan ay meeshaan joogi lahayd yacni f7 ay joogi lahayd maxaa dhici lahaa checkmate laakiinse cidda f7 naga joojinaysa waxay tahay waa kuwiintan marka waxaa ku fikirtaa inaad samaysid interference ma samaysay masku dayday rook e7 amazing why qalcaddan imise maraa la dilaa bal eg ma dhihi karna qalcad waalan waa sababtoo waxaa dili kara bishopkan waxaa dili kara kuwiinta waxaa dili kara fardahan 3 mar ayaa la dili karaa haddana madowga waa losing position waa ay ka dhammaatay sababtoo ah haddii uu kuwiintu ku dilo waxaa dhici doono in kuwiintan ay imaado d5 danna boqorkan ay geliso check dabadeed waxaa qasab ah in kuwiintan lagu soo xiro ama squarekana loogu xiro oo e6 ama f7 dan kuwiinta ay disho let's see marka knight e5 wow sababtoo ah qalcaddan waalan cidna ma taaban karto waa sidaan idiin sheegay oo haddii uu dili lahaa qalcaddan cadaanka waxaa la dhihi lahaa check qasab waxaa in lagu soo xiro ama intaa looga xiro ama same waay ama xaggaasaa looga xiro waxaa dhacaya waa checkmate sababtoo ah kingan cid daafacdo ma lahan squarekanna kuwiinta keliya ayaa daaficaysay so
marka black wuxuu sameeyey inuu dhaylo e5 knight e5 waa gartay qalcaddii walneed marka lama taabanin oo lama dili karo square-kiina waxaa weli u daafacaya waa fardahan sababtoo ah fardahan wuxuu daafacayaa square-kii so kuwintan haddaan dili lahayn ma dili karno oo waxaa lagu qaadan doonaa kuwintan kale check so still waxaan haysanaa xubin oo fardahan kale ayaa noo jooga balse farda free ayaan iska haysanaa waayo kuwinteenna aan u bixinaynaa waayo attacking ayaan annaga samaynaynaa so that is the solution marka maxaan ku faa'iidnay interference-geeni waxaan ku faa'iidnay in nala laaluusho ma dhigi karnaa sababtoo ah xubin dhan ayaa nala siiyey oo qasab ah waa gartay bal isku day example-kan caddaanka ayaa guuro waxauna samaynayaa interference ciyaartan ama move-kan hadda aad isku dayeyso waxaa hore u dheelay oo hore u sameeyey legendarygii hindiga ahaa ee anan so isku dayi kartaa move-ka uu sameeyey anan caddaanka adoo wato rook f6 wow sababtoo ah qalcaddan 2 mar ayaa la dilaa sida caadiga inkastoo kuwinta haddii disho askari uu yaallo balse bishopkan ayaa dili karo kuwintan way dili kartaa marka interference hadda yaa lagu sameeyey yaa faragelin lagu sameeyey wada shaqayntii bishopka iyo kuwinta ka dhexaysa ayaa waxaa lagu sameeyey faragelin so qalcaddan faa'iidada ay leedahay waxay tahay haddii uu bishopka dilo waxaa lagu dili doonaa askariga sababta askariga loogu dilayna waxay tahay ama uu madowga ka cabsanaya waxay tahay g7 sababtoo g7 waxaa ka dhici doona checkmate tusaale haddii uu random move sameeyo waxaa dhici doona check and checkmate so madowga marka wuxuu ka cabsanaya waxay tahay waa g7 in checkmate loogu sameeyo sidaas awgeed wuxuu sameeyey in uu kuwintiisa dhiibo oo kuwintaas meesha lagu qadeeyo so this is the end example-kii u dambeeyey bal isku daya madowga muxuu qorsheynayaa caddaankase muxuu qorsheynayaa madowga wuxuu qorsheynayaa in bishopkan checkmate lagu qaato balse bishopkan cidda daafacayso yaa waaye bal eeg waa kuwinta so kuwintan iyo bishopkan faragelin ma ku samayn karnaa yes maxaan dhilaynaa marka bishop b5 wow maxaa meeshan ka dhacayo maxaa socdo bishopkan ma bishop waalna miyaanan askarigan lagu dili karin askarigan haddii lagu dilo waxaa dhici doono checkmate in one move sababtoo ah waxaad faragelin ku samaysay wada shaqayntii ka dhexeeyay bishopkii iyo kuwinta balse ka waran haddii kuwinta lagu dilo dee waa la iskaga qadin doonaa iyadana so muuqaalka halkaas ayaan ku joojinaynaa waan idin salaamayaa dhammaan akhyaarta ku xiran janaalka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh